وهيرسي وهيري وجراع وحسيسا وتنال وجود الرب حضورك حمد الله حمد بدني لما بدن وطولين هالك الفرع حضر مقعدنا عاومين هنا يجرون ويانا وعليكم جلال يبيبا وحلي المعشر أي كان برضه أو كان كل كلمتين وقالوا ذاك الكلام لما تقولوا مهمة أيضا هاي وما أنت واحد دونك كسرتين لما تهاي مسلم واحد بدك يقولها تبريرها ما هي نبت الجيل وبندا كلها نبت على المدة أنت نبت جتان نبت هاي نبت على المدة نبت نعاود فكر بشيء النبت وحلي يقول بهاي البنات النبت أيوه يقرب استعمل إذا ما لنا قرب استعمل كنا نقول كل ما نشغله أولاد اللي يقول راح تركي مكان عيسى أولاد دياك تقول إيه في مكان عيسى لا يروح يبغى إلا هاي يبرك ويطلع السمر ولا يسوق بجماله كمان نبتو بيموت إلى ذي وحي عاور كم شهر من قرب ذا كل يوم الناس يسموني حب عن جو سارن تهانا وكنت ذالا واختبار كوبان يعني وشرا عاوني كامل أرجعنا بيسيبوا كسولي عاونا حرمه هنا إن بريت ولا كمان عم سنة ولا لها أبكاري يسقى بقى كمان فلينا أجل بما تنتهي حلو ونحسن المعسل. أنا هي وفرحتي ويمشي ساعة شكورة وكذا يا عبد شكور وأنا ميس كان بروحي دي مش بروحي والله كده عندنا شيء لما تبان كده والله اللي أنا كنت أنا أفكر ميس سالون من هذا يا ريت تدلوا لي متابعة ولا كان قاعد بس هذا شغله كنت ما تعلم يعني المتابعة إن حبيبي يا الاستماع وساعات حولك ولاشا يا لما دستورك محمد حسين أحمد كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قدوميها هيئة الشقارة أفيانك لطليها مدحوينها وزيرك هوري وزارة ورشدها أقاسمها وزارة هيئة الدولستيو هوده المدنية موسى إبراهيم يوسف iyo martida kale iyo qoraaga waxaan ku salaamay salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. hadalkii horta muhiimka ah waa la yiro dad badan oo aftahana oo aad iyo aad u hadal wanaagsan ba halkan ka yiri iyo maxamuud warsamo bariyaha qodbadayn marka hadal badan runtii waxaan isleeyahay muu hadhine waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa waxa weeye ninkan dhalinyarada ah ee aad iyo aad ka u daada yar leh ee Cabdishakuur Maxamed Cabdalle Cilmi waxaan isleeyahay anigu waxa aad iyo caawiyay farxad labaada ninkan aabihii baan saaxiibnahay runtii oo ay isaguna nin qoraaya oo aan u maleynay mala inuu dadka hidaystay Maxamed Cabdalle Suxufiya markii uu yiri Axmed Sinaayo ka qoray buug uu kaga hadlayay xagga magaranaysa horumarkii uu sameeyay waxaan xasuustay aabihiina wuxuu ka qoray nin kale oo isaguna runtii haliyaya oo la yiraahdo Sheikh Said bin Suldaan oo maqasheen dalka United Emirates la yiraahdo ninkii sameeyay abuuray isu keenay 7 cimaaradood dalka maanta hooyanka ah waxa weeye inagana inuu xiriirka fiican leenahay ee saaxiibka aynu la nahay Sheikh Said buu ka qoray Maxamed Cabdalle buug muddo imka in badan laga joogo isaguna wuxuu ka qoray Axmed Sinaayo waxa weeye waa Sheikh Said ka deegaanka Afrika waynu wada ognahay ilaahay cimriga caafimaadka ha u barakeeye محمد عبد الشكور ويل آد وداير markaad eegto dadka Soomaalida maanta xaaladda ku jiraan iyo muddada dheer wax way dhibaatooyinka iyo burburka iyo xaaladaha adag ay dhaceen wad yara warwaraysa mararka qaar markaad wax fara badan aragto ee dhalinyarada qaar kood aad aragto ee mustaqbalka iyo dadka wax weeye dadkan u soo kacaya aad aragto laakiin waxay idin ku galaysaa in dhaweeydo dhan sharbaarka dadka ka gooyay ma garanaysaa maantana waxaan Cabdishakuur rajada ay galiyay runtii oo waa wiil aad u yar waan jiray codaynka hadalkiisii ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay waxa weeye barakeeyo oo ilmaha yar wanaagsan si fiican u fikirayo hamigiisa dadka kale waxa weeye dhalinyarada iyo caruurteena inuu isagoo kale ka dhigo inuu ilaahay ka baryayno waynu dhiirigelinayna dadkeenu isma dhiirigeliyo waxa weeye dadku waxa weeye qoraaga iyo waxa weeye qofka halabuur kale iyo qofka waxa weeye
lama dhiirigeliyo ka ciyaara imika maxamuud warsamo wuxuu ciyaaraha waa laftigooda in la jeclaado hablaha iyo inamaduba ay ciyaaraan oo taalantkooda ay bandhigaan way fiican tahay imika ruushka ciyaarihii ka socday inan yaro 19 jir oo waxa weeye la yiraahdo Mbembe oo Afrikaan oo hooyo yaaba madoobe iska dhaleen baa maanta noqday qofka adduunka waxa weeye laga yaaban yahay mucjisada la leeyahay Bayle iyo Maradona iyo wixii oo dhan ba dhulka la dhigay Messi iyo cid walba finalkii uu Faransiiska u saaray koobka inuu qaadana waa la rajaynay Cabdishakuur waxaan u maleynaa inuu kaba yar yahay waa ka afkiisa iyo aqligiisa iyo maskaxdiisa iyo taanadkiisa ka soo bandhigay marka qof kasta halkii kartidiisu ku jirto ka lugta ku jirto ka gacanta ku jirto ka cagta ku jirto ka afka ay ku jirto mid waliba waxaan u baahanayn la dhiirigeliyo gaariya ilaahay ha u naxariistay wuxuu yiri dadka reer Soomaaliland isagoo la hadlaya wuxuu yiri waxaynu ku ciyaarnaa garoon bilaa ah oo goolba lahaynba qofka kii halgamay kii dalka xoreeyay kii waxa wanaagsan qabtay kii xumaa waynu isdhex soconaa waxa weeye biraba ma lihiin oo goolba inooma dhasho oo qofkii guusha keenayna ciidamahan ma soo dhamayso wada wanaagsantii kii kharibayna cid saari mayso marka maanta inaynu u camirro sacabino oo wax aad iyo aad u qadarino baynu u baahanahay saayno inaynu goolasi samaysano mala birtii mid wala taagay tii labaadna insha Allah waynu taagi doonaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka martida ka soo qayb galay xukuumadana way idinka arkaayo maanta madaxdii dalka oo afayeenkii iyo la taliyihii madaxweynaha ee arrimaha waxa weeye bulshada oo dhan wasiirkii hore oo ka mid ah xisbiga kulmiye dadkii ugu firfircoona gudoomiyaha hay'adda shaqaale dad fara badan oo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ka tirsanba dhalinyaradii dhiirigelinaya waxaynu rabnaa in la sii dhiirigeliyo oo dalkan inaynu leenahay la ogaado oo sidii afayeenku sheegay waxa weeye aynu garab istaagno horumarkiisa oo aynu ka shaqeyno wanaagiisa waxa jirta waxa weeye madaxdeena aynu waxa weeye taageero waxa jirta had iyo goor dadku markay madax noqdaan Soomaalidu waxay jecel yihiin inay fashilmaan bay ugu jecel yihiin sheekada ugu badan ay ka sheekaystaan sharmaarke shaqaalihii waxa weeye reerkoodii uu wada siiyay ayay ka jecel yihiin in la yiraahdo wixii uu hagaagay madaxweynihii waxba uu la wada seegay marka waxaynu u baahanahay adduunyada kale dadku way dhiirigeliyaan ceebta way asturaan way taageeraan inaguna waxaynu jecelnahay inay soo wada daataan bal intaa fikta inaga fuushay aynu horta sii baritaano kuwa dambana insha Allah way iska iman doonaan dalkeenan isagu baynu leenahay mid kale oo waxa weeye inoo bedeli kara ma jiro isaga aynu waxa weeye ka shaqeyno horumarkiisa isu kaashano unity-giisa iyo midnimadiisa aynu waxa weeye xoog saaro aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinaya Cabdishakuurna anagu waxa weeye waalid baan u adeerkii baan ahay aabihii waxaanu nahay saaxiib runtii runa nin wanaagsan oo waxa weeye dabeecad wanaagsan oo karti fiican oo qoraaya oo cabqariya oo dadka Soomaalida ku arkay in yar oo fara ku tirisa ayaa dhalay runtii isagana sidii baan ka arkaa waan garab istaagaya insha Allah haday buuga tahay iyo haday tahay hawlaha dambe aad iyo aad u mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsanyahay ismuhu imigana casawirna madaxweynaha arrimaha waxaan yeelnaa wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha warshadaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وهرين أفيناك مدحتولي جمهورية سوماليلاند مدن محمود وتليها مدحوينها رميها بالشدة لواحد مدنية هيئة الشقالة بعدين قال لي اسمها هيئة دول المدينة يوم العرضة مسلسل iyo qoraaga Cabdishakuur Maxamed Cabdalle ee ku gacaaw haleed gudaha furaya hablaha dhalinyarada ah iyo inamada la midka horteeda soo fadhiya ee aad ka quruxda badan leh ee ay ka muuqato hablo iyo inamo reer Soomaaliland oo nabad ku noolaya dhamaantiin ba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta kadib waxa xusid mudan inaynu dhamaanteen hambalyeeyno Cabdishakuur oo markii la yiri buugga waxa soo bandhigay inaan reer Ceerigaaba ah
waxbaa maskaxdaada ku soo dhacaya waxa markaanad arag waxbaad sawiranaysaa waxaan sawiranayaa Cabdishakuur inuu yahay nin weyn oo waxaan uu qorayo hadda halkan uu ku sawiran yahay isagoo ina yar ah waxaan u haystay kan halkan ku sawiran ilmihiisii waa wax runtii lagu faano oo loogu duceeyo oo la yiraahdo ilaahay aqliga iyo cuudka iyo garashadaba adeer ha ku barakeeyo halkaana ka sii wad way nagu yar tahay maanta haddaynu nahay reer Soomaaliland ama ummadda afka Soomaaliya ku hadasha inta dhaqankeennii hore ee aynu ka soo jeednay awoowayaasheen ay muxuu ahaa inaysan u fahansan yihiin oo aysan u xiisaynayaan oo kulba geed fadhiistay oo makhaayad ugu tagay oo abwaan la kulmay intaas ma garanaysaa si ummadda da'diisa iyo kuwa ka yar iyo kuwa ka waaweyn dhaqanka waxba ka aqoon oo ugu soo gudbiyay halka aynu ka soo jeedno iyo buugani waxyaabaha uu ka hadlayo waxaan islahaa runtii ceelgaabo waa hooyadii Soomaaliland iyo aabaheed labadaba oo meeshii laga soo jeeday awooyaashu ardul ajdaad baa leeyahay marka waxaan islahaa runtii de saaxiibkay Maxamuud Warsame oo reer ceelgaabo ah meesha Maxamuud badan baa shaw way Maxamuud badan oo ay Maxamuud Warsame nin aad iyo aad u hawlkara oo da'diisa ka weyn weey markii la magacaabay oo wasiirka loo magacaabay baa leewan dhalinyaro ah waa nin cayn kana wasaas deedna dadka waxaan ku lahayn madaxweynuhu wax kala muu sameeyay cimilada ceerigaabo iyo dastuurka Soomaaliland buu iswaafajiyay kan waa nin weyn marka waxaan ku hambalyeeynaya sida isdaba jooga ah ee ragga haldoorka ugu soo baxayaan magaalada ceerigaabo gaar ahaan gobolka Sanaag in kala oo far badanna in ay joogto waan maleynaya dhowr eray baan ka soo qaadanayaa oo buugan ku jira inta aan bandhig buug ka soo qayb galayay waa buugii igu qiimaha badnaa ee aan arko ee waliba inaan dhalinyaro da'da anaga de caruurteeda la da'ay uu soo qoray weey markuu guurka ka hadlayo arrimo fara badan oo halkan yaala oo maanta hablaha halkan soo fadhiya iyo inamada aan garanin baa ku jira waxa la doonayaa inaad dhaqankiina wax ka barataan akhridaan heerin markaad maqashaan waxa weey xigsiisan dabar garaac Allahumma salli ala Muhammad iyo waxyaabo kala fara badan oo la mid ah ceeb may ahaan jirin habluhu inay marka rag ama hawlo fara badan oo kala qabto ama la isaleeli waayo intay group iska raacaan baa loo jeedaa hablahaas waa heerin micni waa guurdoon weey waxa mushkiladana may ahaan jirin sidaas oo kale dabar garaac baa isna jiri jiray ereygan ku soo ururinaya waxa weey halkan waxa ku qoran gaafka danigii tagay baa garanaya anigu waan tagay aqalka laba daryaalaha marka la dhiso kadis wax la ilaa baa jira oo dadka kolba qof la kiciyo didna su'aal la weydiiyo su'aalaha hadii uu ka jawaabi waayo waxa la yiraahdaa ama hees ama gabay markaan waan ka heesay aroos laba daryaalaha gabayna waan ka tiriyay gaafkiisana waan ka ciyaarayo hablo badan baa noo maray oo nala ciyaaray ma filaya caawa halkan inuu joogo qof inta aroos tagay ciyaar miyay ka ciyaaray anigu ciyaar miyayna waan soo ciyaaray buugani caawa aniga aad buu raali galiyay ragga halkan fadhiya dhaba garaac iyo heerin iyo midna kamay faa'iideysan baan u maleynayaa wali way joogaan dhabeeyana waxaad moodaa wuxuu aad uga hadlay ciyaaraha wasaaradda xiriirka iyo dastuurku imika joogaayo dadku waxay aaminsan yihiin wali inuu ciyaarihi joogo shaw isaga ciyaaraha ka sheekeeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad u mahadsan Shucayb kulay waxqabadkiisii hore uu ku muuqatay qorshadan dadka shacabku u soo yihiin kulay hawlaha qaranka marka guriga uu iska cusbay way sii soo doona la tiriyaa afraad madaxweynaha waxaa soo wariya tubiyaha shaqaalaha shirmada Maxamed Salmaani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير الله بقى محدة أكن سبوكين كان إنه نبدي عاف ما قبلنا إسلام كان وجهنا
inaynu xusno isla markaana garab buuxino waa qiimo badan oo wax qiimo badan u hadeeyay ummaddiisa mahadcelinta ilaahay ka sokow waxaan u mahadcelinayaa isla markaana bogaadinayaa marti sharafta qiimaha badan ee runtii kulankan kasoo qayb gashay ee soo sharfay qoraaga wanaagsan ugu horeeya la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada afhayeenkii madaxweynaha agaasimaha xiriirka golayaasha wasiirkii u hore ee shacayb agaasimaha waaxda qorsheynta ee hay'adda duulista hawada sidoo kale bahda qiimaha badan ee muddo dheer isku xidhaysa gobollada kala duwan iyo qoraayaasha iyo akhriska ee hal qor oo runtii tacab weyn oo iyo mas-uuliyad ummadeed haya inay qofka bari jooga iyo ka ugu galbeedeeba kusoo talagalayo inay jiraan bah marti gelin doonta oo hawshooda runtii qaban doonta gaar ahaan baan u bogaadinaya runtii bahda qiimaha badan iyo hawsha wanaagsan ee ummadda ay u hayaan intaas kadib waxaan bogaadinaya isla markaana la faraxsanayo walaalkay cabdishakuur oo runtii muddo ka hor aan isbaranay isku baranay wanaagga iyo dadnimada ee ilaahay subxaana watacaala gaarka u siiyey buugga inuu soo bandhigay kasokow casharada nololeed uu bixinaya bay ka mid tahay xiriir wanaagga runtii iyo sixirka ay leedahay wanaagga wiilkaas waa wiil dhalinyaro ah haddana waxaa laga yaabaa inta ula saaxiib yahay ama inta usoo jawaabaysa marka uu baab kulan u dirto waydin arkaysaan inta runtii kasoo jawaabaysa marka laga reebo ninka aabii saaxiib yihiin maxamed badariya odayga weyn isaga aabii saaxiib yihiin runtii intaa kale waxa soo hogaamiyey waa wanaagga shaksiyadka runtii wiilka dhalinyarada ah runtii aw sixirka u leeyahay runtii waa dardaaranaynu isku dardaarayno wanaagga iyo qalbi wanaagga iyo diinta iyo dadnimadu waxyaabahaasay dhashaa waxay dhashaa adigoo sanaag guntii jooga ama gobolka togdheer fog jooga in baaqaaga runtii dad iyo dunyaba laga soo jawaabo oo lagu imaado isla markaana lagula farxo cabdishakuur waxaan u rajeynaynaa mustaqbal runtii iftiin badan oo halkaa ilaahay subxaana watacaala horey uga sii wado waa halkaa walaalkeen maxamed xuseen dhiirigelinta iyo garab buuxiska iyo horey u socodo waa waxa runtii ummaddu ay isku dhaafto waxaa la yidhaha reer galbeedku waxay nagu dhaafaan kooga xun bay dhiirigeliyaan ilaa uu wanaagsanaanayo inaguna keena xun wanaagsan baynu la dagaalanaa ilaa uu xumaanayo oo khadka runtii dib usoo dhaafayo ama qolada kale waxa sheegaya reer galbeedkii kale maa ingiriiska marka waxay isku dhiirigelinayaa inaynu runtii qofka waxay nagu soo kordhiyeen ama nolosheenna wax ku soo daran inaynu runtii la riyaaqno aynu horumarino meel dheer aynu gaarsiino waxaa la yaaba qoraalka iyo akhrisku waxaa la yidhahdaa qofka biniaadanka wuxuu nooleysiiyaa jiil aan lala noolayn waxaan u gaarsiiyaa da auna cimri ahaanba gaarsanayn isagoo da-yar ayuu inooga waramayay guurka iyo intuu u kala baxo geedka iyo garta iyo sida loo galo astaamaha dhaqanku lahaan jiray waxaasi waxay muujinaysaa inaanay qasab ahayn inaad gabowdo si aad wax u barato laakiin adigoo da-yar aada runtii wax baran karto ummaddana aada wax la wadaagi karto intaad buuggan akhriyayso waxaad arki doontaa qof walba inta u daran buu aada uga dhexeli doonaa ninka garyaqaan doonaya iyo ummadda inuu oday u noqdo wuxuu arki doonaa garta iyo sida loo naqi jiray iyo ummaddii ummadda ahayd siday ummadda ugu garsoori jiray niman kalena markay akhriyaan midba waxa uu doonayaa uga bidhaami doona afhayeenkan arkayo markuu buugga saa u kala furay guurka iyo inta u kala baxa buu akhriyey halkana waa ku sheegay markaa nin walba intiisii runtii way ku qoran tahay waxaan rajeynayaa inaynu ka faa'iidaysano isla markaana qoraaga aynu soo dhaweyno insha allahu tacala lala faraxno ula ducayno ku dhiirigelino qof walba halkan jooga waxaan filaya buugga inuu aada u jaban yahay inaad buugga akhrisataan qoraaga intaas hadiyad ugu filan aniguna buugga aan macaaw kasoo qaybgalay 30 buug baan ka qaadanaya aniga qoraaga ku dhiirigelina insha allahu tacala waa wanaagsan ay qabtay dhammaantii guulista asalaamu calaykum waraxmatullahi aad buu mahadsan gudoomiyo inta waxa soo dhow doonaa inkastoo waqtigu gabagabadu yahay martida waan ka raaligelinayaa waqtiga aad u dhacday waxaa soo dhownayaa la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada cabdiwaaxid cabdiqaadir بسم الله الرحمن الرحيم مرتشرفت قيمها أو أحمد مناسبة جوجتا المسؤولين تم مقاعدة كلا دوان سنتين أو هذا الطريقة السلام عليكم ورحمة الله سيجارة قرار البوغا عبد الشكور محمد عبد الله قلت يا رب مقرح سنة هاي هنا معاه البوغا كسوق الكلام أنا لما أسمعون كل ما يرى شر ماركيو
رجع هذا فليا حاجة كل قلنا يا شرماركي محمد البيري وحمود والسمي ما أنت والله يا دوجي أنا صدق والله يا halkan kaftanka u badnaayo munaasabad qiimo badan in Google kaliya boor bay ku raadin Google laga sheekeeyo laakiin waxa isku turtay waxay muujinaysaa dhalinyarta caawa halka fadhiya rag dhalinyaro inay yihiin iyagana waxaa leeyahay guurka hore ugu socda anigu maadaama aan ka weynahay odayaasha halkan anaa ugu weyn baan falaya shucayb bitaa waxbaan yaro dheera xagga waxaan yaro eegay guurkaan ka yaro eegay garta maadaama dhaqankeenu uu yahay inaynu barano sidaynu la soconno dadku miyigu way ka soo hayaameen magaalooyinka loo soo guuray loo soo hayaamay wax yar baa ku hadhay weliba lafdhabarteena dhaqaale xoolahay ahayd xoolihii lagu tootay abaar badan ku dhacday taasi waxay sababtay weliba xagga bariga in dad badan ay magaalooyinka soo galaan marka waa muhim in aynu ogaano dhaqankeennii iyo hidaheennii wax kala soconno dhinacay u tahayba marka gartoo kalaan eegay qaybahay u kala baxdo waxaa ugu horeeya dacwad oo marka la qaadayo garta waxay noqotaa maluug gar cadaawe gar shareeco iyo gar xisti bac iyo baadin gar iyo xeerkeed waxaa laga yaabaa kolle dadku inay kala duwan yihiin afka bariga iyo afka dhinaca lagaga hadlo walow aniga sharmaarkaan islaafsanay oo sharmaarka xagga bariga baryahan ugu badnaa mala xagga ana kolle yaro walaaleeyayo inuu la xidido aan aada usoo dhaweynayno aanu istaafsanno amaan ku dhimay xaggan hargeysa iyo gobollada nabadal aan u bato isla berigi inuu wato dadka soor ka yimaado adagsa ismaan cabduur xaashi abwaankii isagaa hormuuda hawshiisa caawa google isagaa noo sheegay aad baan sharmaarka usoo dhaweynayna hawlihii oo ballan qaaday si fiican buu uga soo baxay runtii aniga markuu sharmaarka ii sheegay ama howlo badan lahaa aad nooga goosqabsaday inaan kasoo qayb galo haddana markuu inuu reer ceergaabo waxay iga noqotay baqaha bari karo waa inaan meeshaa tagtaa saasaan horta ku yidhi inaan u cabiro ninkaa bari guntii ka yimi runtii waxaan aad cajiib u ah dhalinyar badan oo reer ceergaaba ah oo anigu aan hargeysa ku arkay inuu nolosha wax ka bedelay dad taalanta ah caqli badan meeshay tagaan wax ka tara soo baxay dhalinyarta haddaan caawa halka ka tiri wadayaabasaa xataa gobollada kale bariga way ka horeeyaan baan soranaysaa reer ceergaabo dad aad runtii ilaahay caqli iyo xigmad iyo hootinimo uu siiyey cabdishakuur baa u tusaalaha haddaan bari qori iyo xabad iyo colaadu laga maqli jiray in bugaaga qor-aan wax wanaagsan looga yimaadaana iyaduna waa qodob meesha ku jira aad baan usoo dhaweynaynaa aad iyo aad baan runtii umahadsantihiin cabdishakuurna buug horena wuu qoray isagoo daayar dhiirigelin bay u tahay caawa intaasoo mas-uul runtii inay kasoo qayb gasho idinkuna aad baa umahadsantihiin aad soo camataan weliba waxaa isla hawlkuu buuxsanayaa oo waxbaa ka yara dhiman gobollada bariga markaad tagtaan waxaa laga qaarkiina tagteen aad baa loo soo dhaweeyaa dadka hargeysa ka tegey hawlayeena muda xoog iyo xoog reer hargeysana isxilqaamaan waa muhim anigu qolyahan xafiis lama fadhiyo xawl saxeexo la taliya baa iska mushaar yar qaata laakiin maxaan ku faanayaa inaan ku dhiirigeliyo buuggeena muhiimsadaan soo jeedinta anigaa lahaa marka maadaama dhiirigelintan aan lahaa xoogaa aan wasyaro garanayno intaa fayeenkan shan ka dhameeyaana 20 maalmaadi ah aad iyo aad baan runtii muusanta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu لطريقة مدعوه أدو ما تسيرهاي إمي كنا عن كل بعض على أبوك يقرأ كي هالقر وعن كل بوت ساعتها كرقايس تأفكه يو يرجلته على أبوك كلا يو سبعته كل بدي حفياك هذا الكيس كده بتجي أو حال كل فترة كيسوا ماتها بلاش عم بحين كل برنامج شبه إذا كنت بشار قال ساي حقيقة قال تبلاش المكان محمد جميع هاي الشغالة كل أنت ركب الناتشرين لكن واحد لصعنا أنت معدي اللي قلت شريت حمات نقاط كل عديد بس شريت حمات مكسر بحين أو مسكحة دكتوريان كده صار معته ومع نسب تيمات مع هم عملي برنجيد بيت المسلمين مرتشرت يوم قرار نور اللي قلنا غير كيسان وأفضل غير سبعة وعلم سوري ويا قراء أفضل قراء كان دكتور كيسان قراء فرح حسن معرض عدان waxay qortay buug ilaha nafta siinta doonaa taqanaan farax isticmaal soo dhawaad
السلام يا سلامة الإسلام كدماتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وتشرفتا كسو قيب كشي مدشان بلان بقران أربان السلام يا مدحي يومي شباب runtii waxaan u malaynayaa waxa si gaar ah u salaamaya qoraaga buuga cabdishakuur yare oo inooga soo kicitimay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Erigaabo kolley lama yidhaahdo ama looma hadlo aniga hadhay waxaan u malaynayaa in hadal badan aan halkan ka furnayn oo la dhameeyey aniga magacaygu waa Farax Xasan Macalin qoraaga buugga la hadal naftaada haddaanu nahay qorayaasha runtii waxaa ugu muhiimsan ee aad qofka sii kartaa waxa weeyaan inaad qoraaga buugta aad ka iibsato aad dhiirigeliso qoraagu ta keliya uu kuga baahan yahay waa intaas marka runtii waxaan dhammaantiin idinkula talinayaa inaad u hiilisaan cabdishakuur waddo dheer uu soo maray oo buugtaas aad dhammaysaan oo aad wada iibsataan midda kale cabdishakuur wuxuu wax ka qoray dhaqankeena